Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay xubin ka noqotay guddiga horumarinta sayniska iyo tiknoolajiyadda. Munaasabad markaasi lagu dhigayay magaalada caasimadda dalkaasi Pakistan ee Islamabad ee markaasi xubinnimadaasi loogu dhawaaqay ayaa waxaa ka qayb galay safiiradda Soomaaliya u fadhida dalkaasi Pakistan Khadija Maxamed iyo mas'uuliyiin kale. warkaasna waxaa Islamabad ka soo diray Durraan Xasan. Soomaaliya waxay markii ugu horeysay xubin ka noqotay guddiga horumarinta sayniska iyo tiknoolajiyadda ee loo soo gaabiyo COMSAT oo ah guddi ay ku midaysan yihiin 27 dal oo adduunka. dalalka ku midaysan guddigan ayaa isdhaafsada aqoonta dhanka PhD-da iyo masterta iyagoo sidoo kale wadaaga xarumaha cilmi baarista iyo isdhaafsiga ardayda. shirkan ay Soomaaliya uga mid noqotay xubinnimada ururkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socday Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen safiirka Soomaaliya ee Pakistan Marwo Khadija Maxamed, madaxii hore ee hay'adda caafimaadka adduunka Dr. Khaliif Bile, madaxweynihii hore ee Galmudug Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed, safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Mudane Axmed Cawad iyo mas'uuliyiin kale. madaxdii ka socotay dhanka ururka ee ka soo qayb galay shirkan ayaa gacmo furan ku soo dhaweeyay xubinnimada Soomaaliya iyagoo sidoo kale hambalyo buuxda u diray Soomaaliya. xafladda dhaqangelinta heshiiskan ayaa waxaa khudbad ka jeedisay safiirka Soomaaliya ee Pakistan Marwo Khadijo waxayna sheegtay in Soomaaliya ay si weyn u soo dhaweynayso xubinnimada ururkan iyadoo sidoo kale sheegtay in heshiiskan uu horey Soomaaliya ugu saxiixay wasiirka waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Mudane Cabdi Daahir balse haatan uu si toos ah u dhaqan galay. As it is 26 of member states, today I am very pleased to participate in the celebration of the membership of Federal Republic of Somalia to the famous COMSAT Institute and Information and Technology, which is indeed a well-known institute of higher information and technology, which is indeed as well-known institute of higher education. I would say Mujo Pakistan or Somalia के लोगों के रहन रहन सहन में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। और यकीन करें कि मैं इस्लामाबाद में ऐसे खुश हूँ जैसे कि मोगादिशु में। COMSAT के भरपूर तवान के बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सोमालिया दोस्ते ज़ंज़िबार। dhanka ururka ayaa waxaa goobta ka hadlay madaxa fulinta ee COMSAT Mudane Junayd Saidi oo sheegay in ay Soomaaliya tahay dal muhiim ah oo dad da'yar u badan ay ku nool yihiin kuwaas oo ka faa'iideysan kara fursadaha ururkan ee dhanka aqoonta. Once again, we are really grateful and it's my honor to welcome you. Taking the opportunity, I must tell what COMSAT has been doing and what COMSAT is. It is because that I'm trying to persuade other people to become the members of COMSAT. We were fortunate and lucky that Somalia became the 26th member of COMSAT. I thought, why it is so that it has become so quick and so fast? Perhaps it was the reason that there was a lady ambassador. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay in Soomaaliya xubin ka noqoto ururkan waxaana jira arday badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo barta ama horey u bartay cilmiga sayniska iyo tiknoolajiyadda waxayna ardaydan mustaqbalka ka faa'iideysan karaan fursadaha dhanka aqoonta